السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحابتكم سو دوادا شاعي أكاديمي. فيديو كان سوق في عرب عن صديقي هذا يسوق في صومالي بين صديقنا إن شاء الله تعالى. نصوص عنه بروجرام كان اللي هذا سكولرشيب كان جامعة بحين سحلوا أنا كوتش يونيفرسيتي. هذا بكوتش يونيفرسيتي نسدان هذا صوش جنوا جامعة كم إذا جامعة تركيا وين جارهان دنك التكنولوجيا يمحرها الدراسات كلا سمايو. sidoo kale waa number 1 bay waxay kaga jirtaa dalka Turkiga number 1 bay kaga jirtaa 1993 la aasaaso xogtan si guud ayaa waqarsanaysa kaalinta koowaad ee soo gashay QS World 2021 rank Boulder University rank ka sameeyay waayahay haddaba jaamacad waxa weeye ugu talagashay inay ardaygu helo waxbarasho ama maxaa la yiraahdaa falsafada ku dhisanta wuxuu yahay student centered ardayga inuu noqdo mid wax soo saar leh mid fikirkiisa dhiiban kara inuu noqdo ay ku dhisan tahay in ka badan 200 oo xarumood cilmi baaris isku dhafan ay leedahay shay baaradii bandhigeedii waxyaabo la midka ku jira sidoo kale waxay iskaashi kala dhaxeeya in ka badan 100 jaamacadood ee ugu weyn dunida ee ku kala yaala Mareykan Yurub waxyaabo iskaashan waxaa kamid ah isdhaafsiga fasalada semester ba waxa ku qaatay Coach University anada semester kala hadii Mareykan aadina meesha ka soo wada karto ama Yurub wada jaamacadaha ay yihiin iskaashi kala dhaxeeyo ina hore ka soo wadan karto way haddaba faahfaahinta ku aadan deeqda waxbarashadeena isla aragno deeqda waxbarasho waxa bixin doona maxamed tagrida dalka Turkiga deeq bixiyaan waa jaamacadda Koç University sidoo kale jaamacadda lagu baranayo waa isla jaamacadda Koç University heerarka waxbarasho lagu baranayo waxa Bach Masa iyo PhD intaba haddaba jaamacadda tan waxay u furantaa dhammaan wadamada adduunka dalka jooga ay u furantahay da lagu xiray qofka qasab ma jirto luqada shahaado English inuu haysto iyadana lagu xiro shuruudaha kamid ah xilliga kama dambaysta ay codsiga deeqda waxbarasho uu ku egyahay codsigan deeqda waxbarasho ee jaamacadda Koç University waa mid furan sanadkoo dhan furan yahay laakiin waxaa jira codsiyada inay kala duwanaadaan faculty qaarkood waxa laga yaabaa inuu qayb ku egyahay faculty kale inuu bilaabana faculty kale laakiin sanadku idil uu furan yahay haddeertaan xilligan hadda la joogo maanta ay tahay 28 October oo bisha 10aad waxaa furan master iyo PhD ayaa furan insha Allah taala 11 bisha 11aad dhaxdeeda waxaa furmi doona isagana batchka uu furmi doona marka mar walba waxaa furmaya ama marxaladii marka la maray ayaa mar walba sida u furmaysa marxaladda batchka laftigeeda faculty-da ka koobanta iyadana sida ay u furmaysa marka dambaysa midka xilliga sanad dugsiyeedka uu furaya وايه هذا بعد إنه صراحة كان قرال أد كوي حس قلنا وها عسكرتا إن برنامج كان واضح عسكرتا هذا هو راعي تلابوين كما شرح هذا نكوفه فين السبب فيديو كان كوفه شرحنا سواء كان هدية دون السنة إن جانس كبير سو ودون السنة كنا كوحرنا شعية كريمة وودينا نكوي حرينا وإحنا جلوس حريكتا وزعنا مركنا تلجرام كنا جلوس حريكتا سواء كان هدية دون سو إن كورسين إبستو أو emergency preparedness وترين halkan ayaa ka iibsan kartaa duwaalidna ku rafaa kartaa si aad faahfaahinteeda u siiyasho insha Allah taala adeegyada uu bixiyo shaqada kari waxa kamid ah darbashada deeqaha waxbarasho iyo xareentooda waxa kamid ah qasiyada iyo tababarada dunida ka jira frontiers dunida ka jira iyo fursadaha shaqo iyo dokumentiga noocyadaas diyaarintooda ay ka caawin doona sidoo kale wuxuu ka caawin doonaa diyaarinta dokumentiyada sida CV-ga warqadda dhiirigelinta motivation letter-ka warqadda shakhsiyadeed personal assignment warqad talo bixinaya recommendation letter hadii aad doonayso arday jaamacad dhiganaya aad diyaarinaya aad tahay batchkii aad doonayso in wax laga caawiyo research-kaaga isagana insha Allah taala waynu ka caawin doonaa haddaba yaa codsan kara jaamacadda Koç University codsan kara ardayga dhigta hadda form 4 wuu codsan karaa sanadka labaad inuu soo baxdo markuu dhameeyo insha Allah taala wuu codsan karaa sidoo kale waxaa codsan kara ardaygii dhameeyay ardayga form 4 ka dhigta wuxuu ku codsanayaa inuu keeno documentigi form 3 ayuu keenaya inuu form 4 dhigto uu cadeynaya sidoo kale ardaygii dhameeyay dugsiga sare ayaa codsan kara waxaa kaloo codsan kara hadduu doonayo batch doonayo ardaygii batch dhameeyay wuxuu codsan karaa master ayuu codsan karaa ardaygii dhigta batchka sanadka ugu dambeeyay dhigta master wuu codsan karaa isagoo keenaya documentigi hadduu batchkii caadi u dhameeyay master ayuu codsan karaa sidoo kale ardaygii masterka wada sanadka ugu dambeeyay maray doctorate uu codsan karaa PhD uu codsan karaa hadduu dhameeyay sidoo kale PhD wuu codsan karaa waaya kuliyadaha ka badan kuliyadaha aad u badan ayaa ka badan waxaa kamid kuliyada caafimaadka sayniska injineerinka maamulka waxaa kamid ah nursingka sharciga cilmiga bulshada social science waxaa kaloo ka badan
kulliyadda injineeriyada ka banaan oo heerka daraasaadka jaamacadaha post graduate sidoo kale culumta caafimaadka post graduate ka banaan maamulka guud post graduate cilmi bulshada post graduate taariikhda post graduate intaba way ka banaan post graduate markaa waxaan kala jeedaa master iyo PhD intaba haddaba tilmaamaha ku aadan deeqda waxbarasho waxaa bixin doonta waa jaamacadda ku taala dalka Turkiga ee Koç yiraahdo waa mid ka mid ah jaamacadaha deeqaha waxbarasho ee bilaashka bixiya waana kuwa ugu wanaagsan dunida oo dhan oo loogu talagalay dhammaan ardayda rabta inay wax ka bartaan dalka Turkiga inay wax ka bartaan una safraan dalka Turkiga haddii ay doonayaan dalka Turkiga inay safraan waxay bixisaa deeq waxbarasho bilaasha kuwa soo socda ee kamid ah deeqaha waxbarasho bilaashka ay bixiso qaybahan ayaa kamid ah wayna soo arki doonaa insha Allah taala barnaamijka baashka waxbarashadii ayaa free ah waxay bixin doontaa hoygii ardayga bilaash buu yahay sidoo kale bixinta agabka waxbarasho ee laga marmaanka sidoo uu heli doonaa ardayga duuya Masar waxa uu dheer inuu heli doono mushaar billah ardayga PhD-ga inta waxa uu soo dheer inuu heli doono ticketkii uu ku imaan lahaa sidoo kale waxa uu dheer bixinta caymiska caafimaadkiisa hadii waxay soo gelin lacag daaweyntii uu heli doono sidoo kale laptopna inuu heli doono ayaa u dheer ardayga duuya arday dhigta PhD way dokumentiyada laga marmaanka waxaa laga doonayaa qofka inuu buuxiyo foomka codsiga sidoo kale waxaa laga doonayaa sawir shakhsiyeed inuu keeno sidoo kale waxaa laga doonayaa nuqul ka mid ah baasaboorka ama baasaboor hadduusan haysan kan Charles Boyce inuu xareysto waa goorma hadduu haysto ID kaarka dowladda ama uu haysto shahaadada dhalashada oo ayuu wuxuu gelinayaa booskii baasaboorkii labadan ayay ku bedeli kartaa haddii aad haysto ID kaarka dowladdaada sidoo kale aad haysato shahaadada dhalashada haddii aad haysato oo dowladda hoose ka soo baxda labadaba ku xareysan kartaa booska baasaboorka waayahay shahaadada qalinjibinta iyo transcriptka shahaadada dugsiga sare haddii aad rabto batch had fiiro gaara haddii aad form 4 ku jirto waxaa keenaysaa form 3gii waxaad keentay iyo inaad dhigato form 4 ka dhigato caddeedna waad keenaysaa shahaadada qalinjibinta iyo bayaanka ama transcriptka shahaadada koowaad haddii aad doonayso inaad gasho masterka sidoo kale haddii aad wado undergraduate haddii aad wado sanadka ugu dambeeya aad maraysana waxaa keenaysaa sanadka ugu dambeysay inaad marayso caddeynteeda iyo semestrada lasoo dhaafo wixii aad keentay PhD-gana waa lamid sidoo kale waxaa lagaa doonayaa CV-gaaga inaad soo diyaarsato waxaa kaloo lagaa doonaya warqad dhiirigelina ama motivation letter inaad keensato waxaa kaloo ku lifaaqi kartaa tan qasamaha wax allaala wixii sheeda aad haysato trainada qaad koorsooyinka qaad abaalmarinta qaad fiiro gaara dhammaan dokumentiyada waa in lagu turjumaa luqadda Englishka haddii aad iska diiwaan geliso then you can halkan ayaa ku dhufanaysaa waa iska register garan kartaa iyadoo wax lacaga aadan bixin doona haddaad doonayso inaad video step kugu sharaxayna ku soo dirana only waxaad iibsan doontaa trainingkan ay iibsan doontaa $6 kaliya then si free ayaa ku heli doontaa sidoo kale waxaa jira Allahu musta'an haddii aad doonayso inaad ku xareyno $20 kaliya ayaa bixin doontaa dokumentiyada dhammaystiran ayaa inoo soo diri doontaa insha Allah taala halkan markaa ku dhufato then waxaa ku soo baxaya website-koodii Koç University si aad iskaga diiwaan geliso marka then you can iska register garan kartaa si bilaasha insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad fahanteen kana faa'iideysan doontaan